maalin maalmaha kamid ah dhalinyaro meel isugu tiin waxa yaa garanay mareego wax waa mareegaha internetka waa tii casriga ahaydun bay maqleen mareegi marka anigu xigna maan helin galool maan helin galool ba horta laga sameyn jiray marka waxaan ka sameeyay diracaas maradaas ma ka sameeyay marka tusaale ahaan way noogu filantay inoogu filan hadeer waxaan kaaga sheekeynay cabaad ama qool war qoolku waa kaas oo kaliya qoolku halka waa ka kaasa qool leeyahay qoolki waa ka marka inta soo qool la isku xidhay mareeg noqonaysa markay dabeetana laba qool haday noqoto mareeg bay noqonaysaa laba qool wixii ka badan mareeg bay noqonayaan laba qool wixii ka badan mareeg noqonayaan jamac ahaan ay mareeg noqonaysaa marka maqasha mareegta ayaa lagu xidhxidhaa waxariyo naylaba waata marka casarkii fiidka la soo xireeyo waa la xidhxidhayaa neef walba qoolkaas madaxa loo gelinaya waata halkan waxay noogu xidhan marayar halka marayar ba dhexda kaga xidhan qoolka waan arkay marada yar dhaxay maxay iyadu jeed taaganta maradaas ujeeday leedahay ujeedada ay leedahay waxa weeyaan maqasha qaar ba qoolka ka siibta kala baxa qoorta waxa la neefkaas uu dhuunsaday neefkaas dhuunsiga ayuu yaqaana qoolku saama qoranayo hoos buu wadaya uu ka siibanay oo ka baxaya dabeetana taa qool dab baa la yiraahdaa qool dab xariga yar baa lagu dabaya qool dab la yiraahdaa neefka qool dab hadii kale laba hadii qool dab laga gaarsiin waayo laba qool baa la gelinaya labada qool iska ma wada siibi karayo marka labada qool la geliyo waa lagu maraya neefka qortiisa baa la rogayo waa la yareynaya laakiin qaar ba hadana iska roga marka neefka xariifka la kari waayo ee dhibta badan qool dabkaas loo sameeyaa marka maqasha marka la xidhxidhayo waxa uu hees badan ma laakiin ilaha hees badan way Soomaalidu geeliyayda jeclayd geeliyada imkana wasaas ma loo jeceli marka labaduba abaarta adkaysi badan u leeyahay labaduba abaarka harbay leeyahay wata keenta marka inay jeclaadaan oo xaaladaha adag ay ka gudbaan waxaraha ayaynu horeysiisanayna iyagu hees badan ma leh هوالو هوبي هوالان هوبي هوالو هوبي ووحارة جلالي جيد جيدان او جاباني او جايا داديري ريحانا أبار جاقاي هوالو هوبي او جيمير يارو قداني هاي شهورة دايستيني ربيو جيركاو كيني ربيو جيركاو كيني ربيو جيركاو كيني هوالو هوبي وحرينتاسين كغا غدبينا وحرينتاسين ربيو جيركاو كينو waxa marka ila هاي شهورة دايستيني ربيو جيركاو كين ها waata jirku waa roobka barwaaqada guugo kale marka waxaynu galeynaa naylaha xirxirkoodii baynu galeynaa ma jirta maqalay warlay ma lagu war way jirtaa maqashu hees badan bay leedahay mid waa lagu geedigeliyaa midna waa lagu xirxiraa midna markay idaha jaqaan baa caweyska idaha lagaga xareeyaa saddexdaa nooc ayay maqashu leedahay ta ugu faraha badanina waxa weeye tala daaqgeynta waa geedigelinta marka hoobalow hoobey hoobalaan hoobey hoobalow hoobey nacisha guuleedey guulaheed dhowriyey guula soo hoyatooy ina gabarayay goobo gabarka waxa la yiraahdaa idaha dusha sare madowga ku leh laxaas gabar bay leedahay sida goobado kale ay dhabarka qaar madow yiinidaha oo ka baxsan intii qoorta waa dhamaan iduhu badankooda qoor madow yihiin xabad iyo dhif mooyaan iduhu magacayay haayo waxay leeyihiin halkan ay maansadan ay noogu jirtaayo waxay leeyihiin galaal waxay leeyihiin dharo waxay leeyihiin gabalo waxay leeyihiin daylo waxay leeyihiin gabaray inta marka idaha waxa la yiraahdaa madmadowga la xadasay calan bay leedahay barabaraha idaha hadii lagu hada waa la xalal ma waa mid gabar leh waa mid gabar ama waa wax daylo waa mid jeeniya dhinaca madow
daylo dadku aad u maqlaan daylo waa inta madow qoorta madowgeedan ayaa siyaado ku jirta ilaa jeeniyaha soo gaarsiin ha marka ta jeenigana madow waxa la yiraahdaa gaashaan ha gaashaan baa la yiraahdaa oo halkan inuu gaashaan laha ka qaadanay inagu ha ta kalena waxa la yiraahdaa waxdayl maxay ma sii dhaafsan waxdayl baa la yiraahdaa ha midna waa gabarey wata dhabarka madow naayisha gooleeday gooleheed dhawriyey goola soo hoyatoy ina gabarayey gooboy ina gudon quruxey ina galaala carwoy ina godoy geeyoy ina gabale goohay ina galaala carwoy ina garmaameeyay ina gooleheed dhawriyey hoobaleynayshay hoobalaan hoobey taasi waa taa waxaa kalaynu qaadanaynaa waxa loogu heesaa tan xilima waxaa loogu heesaya marka mareegtaa lagu xidhxidhayo fiidka hablaha yaryari ugu heesaanoo maxayday waa kolba qaar lasoo qabanaya marka inta badan maqasho waxa la raaciya caruurta la raaciya habliyeena maba ha caruurta raacda maqasho caruurta xidhxidha haddii aan reerku dee yaryaroobe lahayna dee dadka waaweyn badani ku haysata marka haddana waa wadani ku badday laakiin sida caadiga ah hablaha raaca hablaha xidhxidha kolba ciddii dee reerku ciidan uu hayo weeyaan laakiin inta badan waa hablaha ha markaa mar kalena waxaa la yidhaha hoobaley hoobalaan hoobey wanayla karameedey oo kobocsan oo korayey oo kora malaaleegey ii kaalay oo korayey kulli kaalin wada galayey anigaa kob mayracayo kolla hooyadood nuujo kolkooliyo koriye hoobalow hoobey la hoobalaan hoobey hoobaleynayshay halkaasaynu maaragtay taas waa mareegtii oo halkaasay nagu daysa mareegtii markaa waynu iska laabanaynaa marka mareegtan lafteedu waxay leedahay soo maaha xerada qayb ka mid oo loogu xidho mareegta loogu xidhay dhidibaa dad baa loo aasaayo halkaa dhidib baa loogu xidhayaa marka 5 neef shan qol maxay la geliyaba dhidib kalaa la geliyaa dabeetana mareegta sidaas waxaan ku tusi doonaa halkuu dhidibku ka galo mareegta waxaad u fiirsataa labada qol way isku dhow yihiin laakiin labadana way kala fog yihiin dhidibku halkaasuu gelaya si aanu neefka u dhibin dhidibku halkaa kala fog ayuu gelayaa marka waa qoriyo sidaas ugu jiraa meesho saasaa dabeetana neefkana si nafisa ayaa loogu xidhayaa waa dhidibadaa u aasan marka shantii qolba maxay ahaydee dhexdooda mareegta ka yara kala fidsan dabeetana waxaa la gelinayaa dhidib qori adagoo loo aasay ayaa la gelinayaa markaa dee sidaasay u soconaysa xerada ugu badan mareegta ugu badan ee la sameeyaa waa ilaa imse noqota waxay ku xidhan tahay arigu cadadku leeyahay naylahu haddii ay ka waran laba tiro kale yihiin cadadku naylahu ay leeyihiin hadday laba tiro yihiin laba mareegood baa la sameeyaa oo mid waliba ay tahay 200 mid walba 100 tahay ha tirada lafteeda waayo mareegta haddii nayluhu 100 yihiin mareegta waa laga siyaadiyaa intaa waayo wana kulana maqasha qaar baa 2 qool qaata kuwa haddii aan la qool dabin waxaa dhici kartaa in uu maqasha qaar markay xoogeystaan is dhufta inay qoolasha qaar go'aan inkastoo dumarkii Soomaaliyeed wixii ay sameyn jireen aanay go'i jirin oo ugu talageli jireen waana shaqadii dumarka raggu inta badan ma qabtaan waa shaqo dumar waxaan ka sheekaynaynaa maca heesahan caruurta maca daadaha maca maxay gacalku arag waxaan oo dhami waa hawl dumar weeyaan waxan Allahu akbar waa hawl dumar kaalina dad ku jireen waxaa la sheegaa laba heesood gabayga iyo geeraarka mooy waxa kale ay dumarku leeyihiin hees hawleed oo dhan marka laga rabo kuwa geela iyo waxa lagu waraa geela iyo geeraarka
geeraarkana waxaa jiray geeraar dumarku leeyihiin oo dhaankaa lagu soo geeraari jiray oo dumarku laftoodu geeraarkaa way leeyihiin laakiin raggu markuu ama libaysto ama uu jabo ayuu weliba markuu raggu libaysto guulaysto haa iyo marka abaaraha waxa waa nooc damaashaadka ka mid u ahaan jira iyo gabayga hoyaaleyda markaa gabaygoona dumarku si kale u soo geli jireeno waxaa loodhan jiray gabadhu gabayga ragga dumarku ma gayaan markaa yaa inkaan idinku dhicine gabayga ha u dhawaana idinku buraamburka iyo waxaasaad leedihin iyo waxyaabaa kale xaggaa u kacaa loodhan jiray xuduudaa loo kala sameeyo dumarkana raggu buraamburka ugumay tegi jirin dumarkuna gabayga ragga ugumay tegi jirin laakiin dumarku si dadban dumarku ragga way ka khiyaamo badan yihiinoo si dadban oo kale u soo galeen waxay ku soo galeen luuqda la yidhaha hoobalayow heedhe waa gabay hoobalayow heedhe hoobalayow heedhe waa kaa hoobalayow heedhe markaa waa gabay marka inta badan marka gelbiskoo kalaa haa aroosyada way intii mareegtayda intaasan kaga gudbi doonaa waxaynu u gudbi doonaa markii maqaasha waxaynu markaa mareegtii waynu ka gudubnay marka ay nayluhu idaha jaqaan waa la xereeyaa waxay leeyihiin eda gooniya markaa taasina luuq kaley leeda markaa waxaa la odhan jiray roonado ayeen soo roroora roobadayo rays baa urayo ramad baa dhalaye roonado ayeen soo roroora soo rabayaama baa la odhanaya laxana kale cajiibo kale dadwan baa bay leeyihiin haa wax la sheegaa laxamada heesaha ugu laxamada quruxda badan leh in laga qaatay wixii dhaqanka Soomaalida ama heesashii dhaqanka Soomaalida ama hees hawleedii dumarka ayaa la sheegaa waxaa la odhan jiray gaagaabo ayeen geeldhaamooyin gaagaabo ayeen guulaysto ayeen gaagaabooyin gaagaabo ayeen geeldhaamooyin galagolihiina laydin gooyay waa gaadhaanoo waa garataane galagolihiina laydin gooyay dabeetana nayluhu sacabkana waa la garaaci jiray saasoo loo yar garaaci jiray dabeetana way yaaci jireen maqashoo intay yaacday aqalkoodii ay geli jireen habeenkii edagoodii bay ku xaroon jireen marka wax weeyaan waa qaab loo tababarayo waa qaab loo tababarayo haddii sidaa inta la yidhaa caweyska xerada la isdhex taagan haddaan wax kaleba la odhan oo roonaado iyo soo rorow la yidhaa bagagagaga wayaaciye laakiin waxaa jira mid hunguri xunoo dhaga adagoo marka lexda ku dhiga ama hoose isku naba kaana qoortun baa lasoo jiidi jira waxaynu u gudbaynaa markaa maqashi markii la geedigelintii haa markaa maadaamaynu maqal geedigelinayno halkan waxaynu ku seenaa bahal ay dhaa shugux waxaan maqli jiray ari shugux kama ilbaxo waa sidaa aad u sheegtay waa tahay haa markaa shuguxdina waa tan hayo shuguxdu inta badan maxay ka samaysnaa waa daasadahan ama cananiska laga cabo ama cananiska ama cananiska laga cabo waa kuwii la odhan jiray gobolooyinka haa goboladii oo kale sama ma goboladu waa wax xoolaa lagu waraabiyo waa foosto la kala gooyay qaybteeda xariiradii waan jeedaa xariiradina way ka yartay waa daasadahan yaryar aynu cananiska ka cabno oo dhegley baa la idhaa dhegley qaad baa la idhaa ama koon baa la odhan jiray markaa daasadaha ama biinis laga isticmaalo ama cananis laga isticmaalo waa kuwa haa markaa loogu ridaya dhagaxa haa markaa taasaa dhagxaan lagu guraya dee markaa waa taasoo markaasaa lagu geedigeliyaa haa waayo waxaa la maqaali shugux la-aan ma geedi gasho haddii shuguxda ay weydo haa geedigeli mayso oo waa lala dhibaatoonaya markaa kolba inta la yari lowsiiyo ayaa lagaga nixiyo dabeetana laga yar nixiyay dabeetana yaacay haa
ها marka halkan daasad ba ku jirtaan waan yar qurxiyo waxaan isla waxba daasad meesha la soo fadhiisan kiish yar baa ku rido waa soo waa de waa ka ha waa daasadii waa lagu qulxdii ama shuqxda qof sidoo u yaqaano marka de saasa lagu geedigeliyaa marka horta ta ugu caansan ee meel walba laga yaqaan waa maqalay warlay ha hobey abey maqalay warlay hobey ma lagu warramay hobey inuu weerar dhacay hobey waxa dhigay qolqolay hobey waxa waraan dhul galay hobey in cali la dilay hobey Umar la dilay hobey on cidi maqnayn hobey ma lagu warramay maqalay warlay ma lagu warramay يا مغاشي با جواب سو خليday yaay waramay ma walaalkayba wali hooseeyo walaadkayimi yaay waramay marka wata in cali la dilo umar la dilay marka ilaahay ka raali macaali ibn abi talib iyo umar ibn khattab batal ha waa sheeka xeel dheer waa bahal xeel dheer oo waqti fog ay ka soo jeeda marka waa taas oo maqashadna jawaabayso waxa laga dhigayaa in la isku jawaabay maqashiyo qofkii isku jawaabay qalay warlay ma lagu warramay waxa weerar dhacay ha taasi waa taa waxa jira maqasha maansadeedu waa sida bad oo kale wax laga gayoonayo maaha laakiin waxaynu soo qaadanaynaa taa iyo laba kale ha marka waxaynu qaadanaynaa imaka gediya yarey gedi hobey gediya yarey hobey gediga yaryari hobey wageeda doon hobey wageeda doon hobey wageeda doon hobey ya gaalu guur hobey wageeda doon hobey ya gaalu guur hobey ya gaalu guur hobey garagara u xiis hobey reerkeenu waa guramadege guri roonsedege guramadege gedi qalqalooc gulo walow guri roonageeyoy gacal fadhiyo hoy godi mataal oo geel ku dhalay godi mataal oo geel ku dhalay waxa goorta guday waan garanayaa waragiya geel iyo goon libaax iyo gaada faras iyo gabadhan curan waa inta ugu xoog badan noolaha ha gaada faras iyo gabadhan curan iyo goodir dhalay waxa goorta guday waan garanayaa wagaada faras iyo gabadhan curan taasi waa taa talafteeda waxa ku jira cilmi baa ku jira in badan guulo guri roonage oo gacal fadhiyo oo gudi mataal waxa weeye gudin mataalo gudin iska taala laakiin guri qaraaradan oo reer ootay ka guuray oo waxba u baahnayn buuxsin iyo afsaartoon u baahnayno aan lagu hawshoonin ayaa la dhahdaa ilaahowna geeweeya oo gacal fadhiyo oo gudi mataal oo geel ku dhalay ha waata intaasaad moodaa in inta badan gaar loo soo qaato ha aad inta badan dadku maqlaan ha waayahay runtii cilmi badan ayaa ku jira iyo qaabkan xataa inta badan hees hawleedad waxaad moodaa dadku in waxaan sirmaa wax loogu talagalay in la isku ilowsiyo daalka iyo hawsha maqasho iyo xooluhuna haddii loo heeso ama geel ha noqoto ama ari ha noqoto ama maqal ha noqoto haddii loo heeso markaa xooluhu ma afdhigayaan marka waa xooluhuna way yaqaanaan waxaano way ku geedi galaan oo saa loo tababaro
warno qof haddaan maanta oo dhan shaqeeyo iyo haddaan hees hawleedkaa hawsha ku wado waxaa lagama qof markuu hees hawleedkaa wado inay tahay is-ilowsiinta iyo hawsha maskaxdii baa laga mashquulinaya yani inay daasho marka waxaa jirta tu kaloo laydhaa curcuuriyay macagaha dambaad ka cagaagtayo ka calaama tahay ma cid baan ku wadin curcuuriyay cur hooyada caanaha ku yaal cararo ka nuug taasina way jira waa adigu wax laga gayoonayo maaha bahashaasi way badan tahay marka intii aynu ugu talagalnay barnaamijka maxaa inoo haray way noo hadheenoo maqasha dee dacwadaa lagaga heesa xitaa dacwadaa lagaga heesaayo waxaan ku idhi wixii aynu maqal maanta ku talagalnay waxay la tahay intaasi inagaga filantahay waayo barnaamijyo kaloo dambe ayaan rajeynayaa insha allah inaan sii wadi doono intaasi inagaga filan tahay maqasho dacwadoo kale dee marka looga heesayo waa loo heesaa dacwada lifta marka laga ilaalinayo dacwada marka laga ilaalinayo carruurta waxaa la yidhaha fadhiisanee dacwada madaxiina ha eegatee waa taagnaanaysaano saa maqasho dhex taagnaado ku heeso ku luuqeeya maxaydeen ayaa dayo heedhe daya faarax dayo heedhe daya faarexey heedhe tanaya waxay walay dilayaaye walay dabayaaye walay dilayaaye walagu dabaya walay dabaya walagu dabaya labada waa laydhaa walagu dabayaaye walay dilayaaye hay soo dhawaandhose ayaa dayo heedhe daya faaraxe heedhe faaduma ardo heedhe faadfaatiya waayo inta badan waan maqlay oo inta badan iminka kuwii sii haray iminka dadku dhagahooda kusii jira ayay ka mid tahay nayaa dayo heedhe markaa waxa weeyaan ilaa iminka waa kuwa sii jira ee lagu ilaalinayo waayo hawsha ugu badan ee ariga loo qabtaabaa in laga ilaaliyo dawacada ama dacwada ariga laftiisa haddaynu intaa ku yar darsan karno ariguna taas oo laakiin taana waa ari iyo maqal way ka dhaxaysaa laakiin arigu wuxuu gaar u yaro leeyahay hoolayey hoolay hoolayey hoolay naya habaar qaba hadoof dacawo arigayga hoodale waa laga horeeyaaye waa laga dambeeyaaye la hareera joogaaye ma in laga hadhaad mooday waayahay aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeena intaasaynu qaybtan ku hakin doonaa haddii la yidhaahdo qaybo kaloo badan baynu insha allah isugu iman doonaa laakiin in kaftana aan sii idhaahda adiga laftaadu dharkan aad xidhan tahay halka qoorta tusbax baa kuugu jira tusbaxani magiciisa iyo bal waxaan jeclaan lahaa daawadayaasha laftooda inay maskaxda ku hayaan oo aanay kala aqoonba dharkan bal aad ku labisantahay tusbaxan aad sideeto iyo bal hadda intaa inaad iyaga laftooda bal hadda dharkan aan ku labisnay horta wuxuu u yara samaysan yahay dee sidii dhar hidiyo dhaqan weliba inta sare subeeciyadda iyo cabaadhka tusbaxan cabaadh baa laydhaa waxaa laydhaa cabaadh waxaa laydhaa qool maxay labadaas magac buu isagu leeyahay marka mar jeeni qaar baa tusbaxan waa cunaabi baa laydhaa kuusha laydhaa cunaabiga baa laydhaa kuushan uu ka samaysan yahay cunaabi laydhaa kuusha cunaabi baa laydhaa carabada inooga iman jirtay dee weligeedba imikana inooga timaadaa imika dee haddaan hindi iyo meel ka iman imika anigu carabuhun baan ku ogaa yaman iyo meelaha cadan iyo dhulkaasi ka iman jirtay marka kuushaa cunaabiga horta ta ugu qurux badani waa kala dhaca hablaha oo tan halkan qoorta inta la gashado halkaa dhexda laga kala ridayo xaggaa laga tuuro oo ta ugu quruxda badan oo de waa ta loogu talagalay garayska hablaha in lagu bilo midna waa jeeni qaar midna tanina waa qool ama cabaadh qofa siduu u yaqaano marka dhammaantood ma dumarkoo dhan bay ka dhexeeyaan mise midaba qole gaar u tahay maye hablaha waxa gaar u ah kala dhaca
kala dhaca iyo jeeni qaarka iyo jeeni qaar dumarkana waxa gaar u ah qoolka ama cabaadhka ha mid gacanta lagu islaam dumarka waaweyn marka waxay leedahay qayb gacanta halka curcurka la geliyo waxa jirta qayb maxay ahayd cududaha la gashado iyo midna halkana la gashada oo maxay ahayd waxa jiray oo kale bahal oran jiray sindiyo ha hindi baan maray magaca sindiyo isagana wuxuu ka hablaha cududaha gashan jiray ha marka intaas oo qayb ah ayay u qaybsantay